مسجدك أم القرى. جامع أم القرى ومid ka mid ah masaajida ugu waaweyn uguna caansan ee ku yaala magaalada Baghdad ee caasimadda waddanka Ciraaq, wuxuuna ku fadhiyaa masjidkani bad gaaraya 20,000 oo mitir laba jibaaran, waxaana xilligii hore loo aqoon jiray Jaamica Ummul Mucaarid maxaa yeelay magacan ayaa wuxuu ahaa magaca rasmiga ee loogu yeeri jiray dagaalkii labaad ee Khaliijka ee Ciraaq ka dhacay, waxaana la dhisay xilligii Saddam Hussein. dhismaha masaajidkan wuxuu soo bilaabmay dabayaaqadii sanadii 1999, dhamaystirkiisna wuxuu ku ekaaday bishii Abriil sanadii 2001. waxaana ku kacay dhismaha masaajidkan qiyaastii adduun lacageed oo gaaraya $7.5 milyan oo dollarka Mareykanka ah. waqtigaas kadib duulaankii Mareykanka uu ku qaaday Ciraaq 2003, magaca masaajidka waa laga bedelay waxaana loo bixiyay Ummul Qura, wuxuuna noqday xarunta dhexe ee ururka culimada muslimiinta ee Ciraaq. dhismayaasha masaajidka waxaa hadda degan xafiiska awqaafta Sunniga. sidoo kale masaajidkan wuxuu caan ku yahay astaan matalaysa midowga khariidadaha wadamada Carabta. intaas waxaa ku eg barnaamijkeenii tan iyo muuqaalka xiga. sidaas iyo nabadgelyo.